talinayaa inaad si fiican u baratid Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. saddexda software ma kala haraan, waa saddex software mid walba shaqo gooni uu qabanayo. Waa maxay farqiga u dhexeeya softwareda graphic design-ka lagu shaqeeyo, maxayna ku kala duwan yihiin, mid walbana muxuu ku fiican yahay, ayaan waxaan rabnaa warbixin kooban inaan ka bixino insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaad khaliiji. Ciwaankan wuxuu ku saabsan yahay waa maxay farqiga u dhexeeya softwareda graphic design-ka lagu shaqeeyo, maxayna ku kala duwan yihiin, mid walbana muxuu ku fiican yahay, ayaan waxaan rabnaa warbixin kooban inaan ka bixino insha Allah. Haddii aad ku cusubtahay channelkeena, fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay u faa'iidaystaan muuqaalada aan soo gudbino. Waxayna tahay mar walba dhiirigelin haddii muuqaalada aad subscribe gareyso, like gareyso, share gareyso insha Allah. Mar walba waxaan diyaar u ahay inaan muuqaal qurux badan idin soo gudbiyo oo waxtar u leh, qof walbana ka faa'iidaysan karo warbixinta aynu soo gudbin doona insha Allah. Kusoo dhawaad ciwaankeena maanta. Waxaan arki doonaa insha Allah ugu yaraan softwareda graphic design-ka lagu shaqeeyo waa 5 software. waa mid online waaye, midna kombiyuutarada caadiga lagu shaqeeyo, website online ku shaqeynaya. softwareka ugu hore aan rabnaa inaan sharaxaad kooban ka bixino waa graphic design-ka. qaybtiisa koowaad waa Adobe Photoshop. Adobe Photoshop waa application kuu suurtagelinaya nashqad qurux badan inaad kusoo saartid. waxaana loo adeegsadaa dhammaan nashqadaasi pixels design ayaa loo adeegsadaa, waxayna suurtagelinayaan dhammaan softwaradaasi in nashqad qurux badan aad u soo saartid. laakiin muku habboon inaad ku samaysid logo, laakiin kaliya waxaa loo isticmaala posterska Facebook lasoo dhigayo ama waxyaabaha image-ka daabacad yar loo sameynayo sida A4 size-ka. laakiin haddii aad rabtid softwarekani wax badan waa ku samayn kartaa oo logooyin waa kusoo saari kartaa, laakiin high quality maahan. waxaan kula talinayaa inaad isticmaashid softwarekan kaliya markaad isticmaalisid posterada. ha u isticmaalin logooyinka high quality-ga ah, iyo waxaa kaloo isticmaali kartaa mockups-ka qaybaha kala duwan uu leeyahay. waxaad isticmaali kartaa loogada markaad samaysid inaad mockup ahaan u adeegsatid, waa ku samayn kartaa. laakiin haddii logo aad ku samaynaysid, waxaa laga yaabaa inay culeysyo badan kugu imaadaan oo kombiyuutarkaada support gareynin, quality-ga uu dilayo. waxaa kaloo xiga softwareka labaad waa Adobe Illustrator. Adobe Illustrator waa vector design. vector image waxaa noqonaa high quality resolution. hadda tusaale ahaan labada farqi u dhexeeya waxa waaye markaad ku furtid Photoshop faylka lagu sameeyo zoom gareysid, iyo software lagu sameeyo Adobe Illustrator markaad zoom gareysid quality-ga bedelmay Illustrator-ka. laakiin softwareka Adobe Photoshop-ka markaad ku shubtid design-kii aad ku samaysid oo zoom gareysid meesha ugu dambeysa ay ka hirsid, wuxuu ku siinaa wax yariis aan la fahmayn. laakiin Illustrator-ka wuxuu ku siinaa meesha ugu dambeysa ay xaad ah quality inuusan dilmaynin. qofku waxaa laga yaabaa markuu ku arko computerka Illustrator ay maasha Allah inuu ku dhaho, laakiin Illustrator Photoshop marka la aadid quality uu dilayo. waxaan kula talinayaa insha Allah softwareka marka adeegsanid design walba oo adeegsan kartaa poster la isticmaalayo logooyinka ugu fiican marka la adeegsanayo Illustrator-ka. Illustrator waa program kuu suurtagelinaya wax walba design la xiriira inaad ku samayn kartid. haddii softwarekan aad u baratid, dhammaan softwareda kaleeta ayay waxay u yihiin horjoog. markaad baratid waxaa kaloo aad ku samayn kartaa branding dhammaystiran, looga samaysa ID card, business card, wax walba design la xiriira waad ku samayn kartaa. laakiin waa inaad baratid step by step. markaad sidaas u baratid softwarekani meeshii loo rabay ayaad ku gaartay. haddii laakiin aad isdhahdid softwarekan wax yaraa ka barnaa, waxaa laga yaabaa shaqooyin kala duwan inay kugu soo baxdo aadan si fiican ugu falcelin karin. softwareka saddexaad aan ka hadli rabno waa Adobe InDesign. Adobe InDesign waxaa loo adeegsadaa dhammaan buugaagta magazineska. haddii aad taqaanid Word-ka qaybaha uu kala duwan uu leeyahay, Word-ka wuxuu leeyahay page number, page cover uu leeyahay, page contact uu leeyahay. InDesign-ka sidaas loo adeegsadaa. design waa ku samayn kartaa, quality-giisna wuu fiican yahay. badanaa waxaa isticmaala shirkadaha daabacadda oo buugaagta sameeyaan. haddii aad baratid iyadana chance waxaad haysataa shirkada buugaag badan qurux badan inaad u soo saartid. intaas haddaad samaysidna oo aad baratid Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, waxaa kaloo xiga softwareka like Corel Draw. Corel Draw waa
waa barnaamijyada ku suurtagal nashqad waa ku samayn kartaa, laakiin asiga badanaa waxaa loo adeegsadaa barnaamijyada sida 3D-yada. 3D waxaa la xarfaha ifaya oo hay-adaha, shirkadaha ama hoteelada oo badanaa habeenkii ay shidmayaan keliya xaraf keliya meel ay taagan yihiin 3D kaasaa loo yaqaana. barnaamijka shanaad carabno inaan kusoo gabagabayno waxa waaye Canva waa website template ku diyaarsan keliya makaa rabo wax yar inaad ka bixisid baahane kan ku dar kadibna ka bixi loogada soo gasho magac soo gasho inta sidaas markaa u samaysid website keliya kan wuxuu suurtagalnaa markaas baratay si fiican oo taqaanid Photoshop Illustrator-ka simple project waaye kuma dhawaaye meel walba aad joogtid waa ku shaqayn kartaa. asiga uma baahna application computer-ka lagu shaqeeyo keliya wuxuu u baahan yahay internet iyo email inaad ka samaysid website-kaasi kadibna faylkii aad samaystid kadib daawacad inaad u dirsatid. badanaa asiga waxaa lagu sameeyaa menus-ka posts-ka intaas haddaad baratid waxaan kuu rajeynayaa insha Allah graphic design-ka inaad wax badan aad ka fahantay, laakiin waxaan kula talinayaa inaad si fiican u baratid Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. saddexda software ma kala haraan, waa 3 software mid walbo shaqo gooni uu qabanayo. waxaan rajeynayaa warbixintaana kooban aan uga hadlaynay maxaa farqi u dhexeeya software-ada lagu shaqeeyo ee graphic design-ka. haddii aad ku cusub tahay channel-keena fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay u faa'iideystaan muuqaaladan soo gudbino. anagana waxay noo tahay dhiirigelin mar walba muuqaalo qurux badan inaan soo diyaarino insha Allah. waa inoo mar kale iyo muuqaalo kale oo xiiso badan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.